dekeda magaalada Berbera waa xudunta dhaqaalaha ganacsiga iyo horumarka dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland waana deked taariikh fac weyn leh oo ku taala bogcad istiraatiijiga dalka abuutisiiyay Berbera mudana meeshay ku taala muhiimad weyna muftaaxi weeye mandaqadoodan dalka abuutisiiyay Berbera mudana meeshay ku taala muhiimad weyna muftaaxi weeye mandaqadoodan. haddaba barnaamijkan waxaynu ku eegi doonaa muhiimadda dekeda Berbera ay u leedahay Somaliland iyo guud ahaanba geeska Afrika iyadoo sidoo kalena aynu diradda saari doono horumarka dhinacyada kala duwana ee ay dekedu ku tallaabsatay muddadii uu xilka hayay maareeyaha guud ee hay'adaha dekedaha Somaliland Siviid Xasan Cabdilaahi. hase yeeshee waxaynu marka hore dib u milicsan doonaa qaabkii ay dekedu ahayd ka hor intaanay Somaliland iyo shirkadda DP World ee laga leeyahay Imaaraadka Carabtu kala saxeexan heshiis maalgashi bishii May ee sanadkii 2016 xilligaas oo DP World ay bilowday in marsada Berbera ay ku maalgeliso dhaqaale dhan 442 milyan oo dollarka Mareykanka. markii isbedelka lagu sameeyay waxaanu keenay wiishash waaweyn oo la yiraahdo mobile crane kuwaasoo xajmiga qaaditaankoodu ahaa 120 tan laakiin caqabadda weyn waxay noqotay culayska wiishku inuu halis ku keenay dekedii hore oo aan ka baqnay inay dunto marka 100 mitir u dambeeyay dekeda ee Mareykanku uu dhisay oo kaliya ayaa markabka containerka lagu xidhi jiray because wiishashkaasi may dhaafi kareen hadday dhaafaan inay dunto ayaanu ka baqaynay runtii because shil ku dhacay muddo hore ayaa keenay inay dekedu dalooshanto oo hoosta biyo ka soo galaan markaa run ahaantii waqtigii ugu munaasabsanayd ayay dowladda Somaliland la saxeexatay heshiiska shirkadda DP World si loo casriyeeyo qaybtii hore ee dhaawac u gaadhay looguna daro container terminal isku dhammaystiran alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan ka raysanay culayskii ay ka caban jireen maraakiibtu ee damage ku dhici jiray ee ahaa inay kala sugaan maadaama muddada lagu rogay aanay ahayd muddo aad u dheer maanta waxa dhacda maraakiibta containerska sida inay kaga baxaan 23 saacadood qaarna ay kaga baxaan 30 saacadood halka awal kaga bixi jireen 5 cisho ama 6 cisho ama 7 cisho sababtoo ah waxaan isticmaali jirnay wiishashka saaran maraakiibta laakiin maanta wiishashkii ugu casrisanaa ay dekedu yeelato ay leedahay dekedu waqtigii cusbaa heshiiska Somaliland la gashay shirkadda DP World waxaa jiray mucaaradad xoogan iyo dad badan oo heshiiskaasi ka soo horjeeday balse hadda xaqiiqsaday in heshiiskaasi uu horumar u horseeday dekeda magaalada Berbera. berigii hore markii heshiiska DP World ay la gashay dowladda Somaliland dadkeenu aad bay ugu qeyliyeen Soomaaliduna hore ugu mahmaaday war xumo tashiil meel buu jiraa laakiin imika dadkeenu way realize kareen itus oo itaabsi baa ka dhacday marka dadkeenu markay arkeen runtii warkii loo sheegay inaan waxba ka jirin dhismihii bilaabmay isbedelkii yimi aad bay u soo dhaweeyeen waayo shacabka reer Somaliland waa shacab aad u wanaagsan oo jecel waxqabadka iyo horumarka waana soo dhaweeyeen runtii marka laga yimaado horumarka shirkadda DP World waxaa si cad u muuqata horumarka kale ee dekeda ku soo kordhiyay muddadii uu xilka hayay maareeyaha hay'adda dekedaha Somaliland iyo waxyaabaha muhiimka ee uu muddadaasi ku soo kordhiyay oo ay u horeeyaan taaga lagu soo jeedo maraakiibta مثلا kale mid wuxuu haysan jiray bol clearance kan buu haysan jiray mid wuxuu haysan jiray pilot phone kan buu haysan jiray
mid wuxuu haysan jiray restoration-kan buu haysan jiray mid waliba qofba wax buu haysan jiray xafiisna ma jiri jirin marka intii uu maarayuu nala joogay maasha allah ilaahay khayr ka siiyay ayuu isagu hawshan isu keenay xafiiskan u sameeyay oo hadii la korayay xafiiskan aad iyo aad muhiim u ah waana xafiiska ugu muhiimsan waxda badda marka loo eego xafiiska ugu muhiimsan weeyaan ururinta macluumaadka kaydka maraakiibta documentation-ka macluumaadkooda dhan lagu kaydiyo weeyaan waa xafiiska kaliya clearance-ka bixiya fasaxada maraakiibta una ogolaanshiyahana siiya markay maraakiibtu imanayso markay baxayaan ogolaanshiyaha siiya waa xafiiska ugu muhiimsan aad iyo aad baan u mahadsanyahay maareeyo isaga hawsha fulinteeda iska lahaa asaaska xafiiskan iska lahaa horumarka laga sameeyay qalabka dekedda ee maamulkan cusub maareeyo Saciid uu hogaaminaya uu sameeyay intii uu joogay international pilot boat laba taag oo international standard halka marka la barbar dhigo maamuladii hore iyagoo ka muddo dheeraa uu jiray hal taag oo 40 sano jira oo laga dhaxlay dawladdiisii aad baray 30 sanadoodna aan wax alla wax laga qabtay ee jiray aynu sugayno inuu meesha ku dego marka halka farq weyn ayaa u dhaxay imika dekeddu 3 taag iyo pilot boat bay leedahay dhammaystiran oo qalabaysan oo markabku markuu 4-5 miles soo jiraabo arkaya in pilotkii ku soo socdo waayo pilot boatkii waa arkaya in pilot falaagi saaran yahay baa arkaya waayo pilotku calan buu leeyahay marka uu ka garanaya laashashka kale waxa kale meesha maraya markuu arko pilot boatka marka alxamdulillah way fiican tahay farq weyn baa u dhaxeeya xilliga iyo xilligan imika la joogo waxaan repair garaynay noobiyadihii ama lighthouse-yadii waxa kaloon repair garaynay leading light house-ka soo maraakiibtu ay soo eegtaan kaasoo muddadii aan joogay aan jirinba oo aan dib u bilaabay oo muhiima laga maarmaana waxaan mar kasta isku dayaa in standardka dekeddu uu noqdo mid caalamiya oo la jaan qaada dekedaha si ay u noqoto international waayo waxaanu ka guurnay traditional port waxaanu u guurnay international port aniga oo aqoon kororsi lafteedu ugu tagay dekeda waaweyn oo caalamka ku yaala ayaa waxaan jeclaystay inaan standardkaa gaadhsiino sidee lagu gaadhayaa haddaan dadka aqoontooda la barin aan la qalabayn ma gaadhi karaysa markaa macallimiin baan dibadda uga keennay si ay u tababaraan shaqaalaha waxaanu lahaan jirnay berigii hore 2 taag master maantana waxaanu leenahay 9 bayloodadu 4 bay ahaayeen maanta waxaanu leenahay 11 injineeradu waxay ahaayeen 1 maanta waxaanu leenahay qualified engineers 9 gaadhaya alxamdulilah rabbil caalamiin iminkana waxaanu rajaynaynaa qaar kale inaan dibadda u dirno oo bayloodada ka mid ah si ay u noqdaan ay u diyaar garoobaan maraakiibta waaweyn sidii ay u xidhi lahayn maadaama rajada aanu qabnaa uu yahay inay noo yimaadaan mothershipska waaweyn marka inaanu kusoo tababarno oo aanu dibadda geyno insha allah bismillahi kariim alxamdulilah rabbil caalamiin halkii aan ka soo dhaqaaqnay iyo halkan maanta marayna waa kala jaad maadaama dekedeena ay la jaan qaadayso dekedaha caalamka waxaan rajaynaynaa in qalab kasta oo possible dekeda yeelatay inuu yeesho insha allah hadda waxaa noo soo socda raadaar weyn oo meelaha wax ka arkaya ay aad fog yihiin insha allah port controlku waa hagaha dhammaanba dekeda halka u muhiimsan laga soo galo shaqadoo dhanna waxay ka bilaabantaa halkan markabku markuu soo dhaqaaqo wuxuu la soo socodsiinaya port controlka ayaa u diyaar garanaya dhammaan wixii assistant ee uu baahnaa markuu baxayna waa sidaas leeg marka alxamdulilah rabbil caalamiin 2 sano ka hor iyo maanta halkaan marayna waxa u dhaxeeya gaab aad fara badan waxaa kale oo jira in muddadii uu maareeyuhu xilka hayay tababaro kala duwan loo fidiyey shaqaalaha howlwadeennada iyo farsamayaqaanada kala duwan ee ka howlgala marsada magaalada Berbera in la dhiso shaqaale mujtamac hawo shaqo iyo han ku jiro oo u heelan shaqada cusub ee bilaabantay challenge-ka ay keenayso in loo diyaar gareeyo shaqaalihii oo loo qabto training tababaro
joogto ah si ay ula qabsadaan gaadiidka inagu soo waajahan iyo horumarka aynu higsanayna wixii uu challenge inoo keenayo in shaqaalihii loo tayeeyo awal hore there was no planning ma garatay ma ay jirin tababarana ma jirin ha socoto un bay ahayd waana ka dakhli badneed markaa ma garatay markaa maasha Allah maanta way aad iyo aad bay ugu duwan tahay sidii hore ay ahayd wadannada ka faa'iideystay tababarka waxaa ka mid ah kabtan Axmed Nuur waana kan isagoo arrintaasi sharaxaya iyo muhiimadda ay u leedahay trainingku markuu bilaabmay run ahaantii waxa lagu bilaabay wada dhalinyaro si jiilka aan ula jaan qaadno dekada koraysa ee kor u kacaysa because maxaa yeelay dekada imika sidii hore ma aha oo growing ba ku socda maadaama uu growing ku socdo waa in shaqaalihii la dhisaa haddaan shaqaalaha la dhisin oo aan tababar la siin run ahaantii lama jaan qaadi kartid sida imika ay dekadu ay u socoto maalgashiga iyo casriyeynta ka socda dekada Berbera waa mid loogu talagalay in lagu soo jiito sidii dalka Ethiopia uu isticmaali lahaa dekadan waxaana arrintan sharaxaad ka bixinaya Maareeye Siciid Xasan Cabdilaahi dekedeenu mar walba waxaanu ka shaqeynaa waa service-kana waxaa la rabaa maamul iyo shaqaale iyo dawlad in loo weel samaysto si loo helo macaamiil fara badan marka runtii wadahadal muhiim ah ayaa u socda dawladda Soomaaliland iyo dawladda Ethiopia maadaama dawladda Ethiopia u baahan tahay korodhoor fara badan oo isticmaasho korodhoorku dekadu haddii aan wada helina ma soconayso infrastructure-ku isku wada xidhan yahay alxamdulillah rabbil caalamiin 2022 ayaan rajaynaynaa inay dhamaato Berbera korodhoor taasina wax badan bay ka bedelaysaa socodkii gaadiidka waxaanu rajaynaynaa in boqolkiiba 30 insha Allah dawladda Ethiopia isticmaasho hadday isticmaashana capacity-gu aad buu kacay runtii iyadana waxa ay tahay dawladda Ethiopia faa'iido because culays badan oo haystay ayaan ka qaadanaa muxuu yahay higsiga ay ku taamayso dekada Berbera in ay ku talaabsato iyo waxyaabaha u qorshaysan maareeyaha in uu qaado mustaqbalka dhow qorshayaasha noo qorshaysan waxa weeye runtii sanadkan haddii Ilaahay yiraahdo in la dhamaystiro oo la bilaabo 600 mitir lagu korneeyay dekada waxa kaloo noo qorshaysan in pipeline-ka shidaalka qaada aan u sameeyno corridor kaliya maadaama 3 line ay yeelaan badda inaanu hal isaga dhigno waddo kaliya oo ay maraan oo loo yaqaano corridorkii shidaalka waxaan rajaynaynaa oo kale inay noo qabsamo sanadkan imika oo aan bilownay free zone-kii inuu dhammaaday isaguna haddii Ilaahay yiraahdo sanad gudihii waxa noo qorshaysan in haddii Ilaahay yiraahdo aan soo iibsano hal taag boat kale oo isaguna aan ku soo kordhno haddii eebe yiraahdo maadaama dekadu maalinba ka sii dambaysa ay ballaaranayso haddii Ilaahay yiraahdo waxa kaloo noo qorshaysan inaanu sameeyno dredging oo channelka isagana aanu qodno oo depthka maraakiib waaweyn maadaama ay soo marayso channelka fog isagana waxoogaa la qodo waxa kaloo noo qorshaysan dhammaan maraakiibta scrap-ka ah ee badda dhex taala taasoo isu socodka maraakiibta halis ku keenaysa in iyagana badda laga safeeyo haddii Ilaahay yiraahdo waxa jira runtii dekedeenu waxa ku taala goob location aad u muhiim ah oo runtii soo jeedinaya inay isticmaalaan maraakiibta containerska qaada si ay transshipment ugu sameeyaan waxaanu sameynaynaa insha Allah sanadkan marka la bilaabo 600 mitir cusub ee dambe in la sameeyo transshipment si maraakiibta waaweyn ay ugu soo xidhaan dekada Berbera hadhowna ay uga qaadaan maraakiibta yaryar ee la yiraahdo feeders vessels